xildhibaano hore saraakiil iyo hogaamiyaha golaha la magac baxay kacdoonka gobolka Hiiraan ee kasoo horjeeda Hirshabelle oo shir jaraa'id warbaahinta ugu qabtay taliska golaha kacdoonka Hiiraan ayaa ku eedeeyay xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee beesha xawaadle ku matala islamarkaana waqtigooda uu dhamaaday iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda xilgaarsiinta Generaal Mukhtaar Xuseen Afrax in ay nabadoono danahooda ay ku fushadaan u sameeyeen aqoonsi maadaama dalku uu doorasho galayo dhawaan si ay taa uga saacido in mar kale kuraasta baarlamaaniga ah ee hadda ay ku fadhiyaan ay ugu soo noqdaan. Mas-uuliyiinta kala duwan ayaa soo bandhigay cadeymo ay sheegeen inay ka hayaan xildhibaanada waqtigoodu dhamaaday isku daygaana sameeyay. Siyaasiyiintan, saraakiishan iyo hoggaanka golaha kacdoonka Hiiraan ayaa docdo kale waxa ay digniin iyo fariin adag ay u direen xubno ka mid ah midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya. Xildhibaan hore Xasan Cali Cabdi Xasan Dhuxul, Korneyl Yaaqshiid, Generaal Cali Cabdisalaan iyo Korneyl Faarax Cabdullaahi Cali ayaa ugu horeyn warbaahinta la hadlay. Shirkeena jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay inaan u cadeyno ummadda Soomaaliyeed iyo dawladda federaalkaba raggan mas'uuliyiinta ah oo xilkoodii gabay oo xildhibaan ha noqdaan ama wasiir hore ha noqdaan ama wasiir hadda ha noqdaan inaysan jirin cid ay matalaan. Waa dad xilkoodii gabay, dhibaatada Hiiraan maanta haysata kacdoonkaani ka dhashay waa raggii sababtu ahaa. sidaa darteed waxaan leenahay yaan lagu kaadoomin, cid ay matalaan ma laha. waa dad ilmahooda u shaqaysta, dal iyo dadna aan ka fikirin oo dantooda gaarka kaliya u warda. wixii dhibaato gobolka Hiiraan ka dhacay, dhimasho ka dhacday, dhaawac ka dhacay, nin kaliya oo ayaka ka mid ah oo ka hadlay ama u damqaday ma jiro shacabka ay doonayaan inay matalaan. xilligay imaan jireen la joogaa oo kuraasta ay soo doonan jireen, laakiin sidii maahan aan leenahay annaga sanadkan. sidii maaha aad markii doorashada aad gaartaan 2 shilin inaad soo qaadataan aad ma jirteen. shacabka Hiiraan waa soo jeedaan, waxbay dareemeen, dantooda u istaageen. waxaan leenahay kullu minnahe daniina ka raacda. qolooyinkan ma taqaanaa musharaxiinta oo Xasan Sheekh ka mid yahay oo wili ka daba ordaya oo ay leeyihiin annaka matala kacdoonka, annaka shacabka Hiiraan matala. war waxay matalaan mal jireen niman yahow dantiina ka raacdaan ilaahay. Xasan Sheekhna waxaan leeyahay walaalow dhibkan taagan ninkii dhaliyaa tahay. xildhibaano wixii loo igmaday gabay oo dantii shacabka iyo dalkaba gabay gobolka Hiiraan, adiguna haddaba soconin ee danahaada ka raaco haddii Soomaaliya aad cod ka helayso. intaasaan leenahay. warmayaw meeshaan waxba kama iidin, waxba naguma sheega kartaan, waxba iskuma sheega karno. dadkaan iyo dalkaan waa dayacdeen. haddaad wasiir soo marteen, haddaad xildhibaan soo marteen, haddaad wax walba tihiin, kuwa aad gadaal ka taagantihiin ayaa dad iyo dal iyo diin intaba idii ah. kuwa kale ku fikira inay maalin walba kursigaan ay nuuc u sameeyaan oo nimanka yacni qurbaha ka keena oo le waxa waaye waa odageygii maalin walba cusboonaysiina, shacabkiina ayna la qabin, odayaashiina ay la qabin, oo shakhsiyaadka ku caanbaxay ah. warmayaw ka waantooba. maalin dhoweed shakhsiga nuucaa samayna wuxuu yidhi war xawaadlow ogaada 4 sano horo 4 sano dambo waxba umaanaan qaban. dadka iyo shacabka ayaan been loo sheegin. asigii hadda gadaal ka taagan, dhibaatadii gadaal ka taagan. waxaan u sheegaa qaasaan Xasan Sheekh adeerow ka caliye bilaa caleeg waxaad sheegtaa inaad reer Hiiraan tahay. dhibaatadan hadda soo jireenka ama maanta taagan adigaa muxuu ahay aabbo u ahay oo ku sameeyey. wasiiradaada adaa u idmaday inay dhibaateeyaan Hiiraan inay expanatory hoos geeyo. adigaa ummadda u idmaday xoogna ku sameeyey. reer Hiiraan ayagoo beled weyne joogo ayaa dadkii habeen madow ayaa diyaarada ku soo daldashay. adeerow ka caliye waa ku baryaynaa, ciddaad isku sharaxaysa isku sharax, ciddaad wax ka raadsanaysa ka raadso. af dheer
cod dheera kuuleenna cidda wax ka raadsanaysa karo reer hiiraan ma ahan adigana reer hiiraan ma ahid waa iscadaysay ma ahid qofka hadduu reer hiiraan yahay xumaanta reer hiiraan iyo dabandaabyada reer hiiraan ayuu ka xanuunsanahay kama xanuunsan waa ku faraxday weliyaad lagu wadaa adeeroo meel naga fariiso gobolkaanna ha imaan dadka colaaday kuu qabaan xumaanay kuu qabaan kuwa ku daba taagan oo marwal dabadaada socdo meeshaan waxba kama ahan xaqiiqan kuu sheega shakhsiyaadka gaarka oo ku daba taagan xaqiiqan kuu sheega meeshaan waxba kama ahan adigana ha ku kahdoobin ayaguna dadkooda iyo ku kahdoobin waxa weeye hadalka waa layla leeyahay mas-uuliyiinta kalaa ila leh waxa weeye warkaygu waa cad yahay beenna kama sheegaan beenna ma sheego kuwa qamiska Soomaalidu waxay tiraa qooley qoorqabad biyo kuma cabto anaga cid xoog nagu maqooni kartaa ma jirto nin qoorta intuu na qabto waxaan raalli u ahayn lagu ablikaari karaa ma jiro marka halaga waantoobo gud qolada liiraa midowga musharaxiinta eed badan aan idii hayna mas-uulnimaad soo marteen ma garad hal ninaa idinku dhex jiro oo wax u qalmo ninkaas daba istaaga fartaan ku wada taagayna adiga kuna nagula taaga aanoon magaciisa aanan muxuu ahay aanan shaacinayn xaqiiqan idin sheegay ninkaa dabagala ha isgarab gelina shalay sidii boodka laydii kala booday yaan laydii kala boodin hadda raba inay wax la doorto raba hase yeesho dadkii horay dalkan u baabiiyey inay wax u qabtaan ama ay macnaha ummadda ay samata bixiyaan loogu talagalay ayagii baabiiyey cid walba waa ogta saaki waxaan leenahay inaan dadka gobolkan u dhashay ee dhibaatada ama ha noqoto dhan walba biyo baxaa hadday noqoto waxqabad hadday noqoto waxbarasho hadday noqoto caafimaad dhan walba ka baabaasan dadkii baabiyey waa dadka ayaga waxaan si hadda tusaale u soo qaadanayaa ninka la yiraahdo wasiirka arrimaha gudaha Mukhtaar Xuseen Afrax iyo ninka la yiraahdo Qoono ee sameynaya nabadoon aan ahayn legally oo in legally oo kaarka macnaha bilaa sharci darrada loo sameynayo oo feega oo la rabo in masiirkii ummadan lagu baabiyo annagu ka siisan mayno mana yeeli doono ama kaar ha soo qaata ama kaar yuusan soo qaadan nabadoon waa nabadoonada gobolka Hiiraan ka dhisan nabadoon aan bartaa geedaha hoostooda uusan ku dooran cidna nabadoon noqon maayaan ama saddex gacmood iyo kaar is saara ama iska deysta adikeedii tala dadkaan hurdadii waa ka tooseen waxaan idin sheegayaa labada nin ee Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif nimanka annagana ma matalaan nimantooda dantooda ma ahna dan ummadeed aanan war u hayn ummad ma matali karaan adikana inay waqtigeeda ka lumin annaga horay waqtiga nooga soo lumiyeen saakayna diyaar uma niinay waqti dambe ay nooga lumiyaan kan annagu aan dooranayna waa mid annagu aan iska maraamarnay ummadaas halka joogtana ay macnaha ay ku qanacsan tahay dadnimo iyo waxqabad intaba waxaan soo idin sheegaynaa ama soo dirsada ama ha soo dirsanaha taas adikeedii ka falanta laakiin waxaan idin sheegaynaa inaynan wax matalaada aynan ku lahayn gobolkan lana sugayn loona baahnayn cid u baahanay san jir rag isku sheegay inay yihiin mas'uuliyiin ama xildhibaano ama wasiir hore u soo qabtay ama hadda wasiir joogan waxaan u sheegaynaa xamar Hiiraan ma ahan waxay xildhibaanimada ka rabaan wasiirnimada waxay ka rabaan waxay danta ay leeyihiin wax u yaalaa magaalada Beledweyne xamarna lagama soo doorto xamarna ma kiimaan karaan waxaan u sheegaynaa 8 sano hore wixii hore soo qabateen waxa sameeyeen cid walba ogta marqaatiga ka wadata hadda waxa ku darsateen haddana inaad sameystaan lama doono oo fiiga oo idinka isku magacaabaysiin waa soo wasaaradda arrimaha gudaha ninkii mas'uulka ah oo مسؤول قرنها مانتي إنه معناها دوكيمنتي فيك إنما أنا بدون هن لا دورانين إنه دوكيمنتي سيو فيسبوك صادق تي هرن وين رجعنا بدون أنا هنا أنا بدون لك صادق هذا الحوادث أنا بدون وليه وجالس وليه أقوياء وليه إذا كأغلب بنتي أنا معيدا وشيء يصير مجرم هلا جوا أنتو أنا بدون هذا فيك جهل سمينا مع هذا حمر وحلا قدم يا هيران ما أنا حمر على جمدش هيران على جمدش هيران وحلا قال لي هيران نكي دن سياسات كله أما كرب محيه هدين
mustaqbal kala adar geedkan inta laga xukumay hiiraan ha yimaadaan hiiraan halkaan laga hogaamiyaa hiiraan waa inay yimaadaan ninkii wax ka rabo ninkii shalay ku fashilmay inuu maanta haddana mar labaad nabadoon aan ahayn inuu dukumiinti usoo samaysto oo nabadoon ii yahay cidkii yeelaysa ma jirto mana caddo waxaan u sheegaynaa nabadoonnada feega ee xamar lagu soo dhisaayo ee loo sameynayo dukumiintiyada inaysan hiiraan isku imaanin adeer hiiraan ma ka gedmaysiin ma suuroobaysa inaad siyaasad uga imaataan nabadoon feegna hiiraan ma ka taliya hiiraan nabadoonnada hiiraan ay joogaan nabadoono guuday leeyihiin nabadoono hoosay leeyihiin nabadoonnadaas nabadoono ahaan oo la aqoonsan yahay ama dukumiinti ka soo qaado maxay ahayd wasaaradda arrimaha gudaha ee xamar ama meesha arti ka soo qaado adar nabadoon hiiraan uu joogaa nabadoonka hiiraan joogaan u ah nabadoon asaana lagala tashanaa asaana wax la weydiinaa laakiin nin inuu soo qaatay dukumiinti feega nin soo wato yiri ii noqon nabadoon hore u shaqayn jirtay laakiin hadda ma shaqaynayso af dheer mar walbuna sheegaynaa cod dheer aanu ku sheegaynaa midda labaad waxaan rabaa inaan la hadlo ragga musharaxiinta adeer musharaxiin haddaad tihiin ma ahan inaad ku gorgortantaan ama ragga hoostiina jooga ee raba inay ku gorgortamaan arrinta hiiraan ay ka go'daa xamarka ma go'do wada hadal ma jiraan waxna ma ka goyn karaan nama matalaan annagana nama matalaan reer hiiraan nama matalaan wixii matali lahay reer hiiraan ay joogaan ninkii wax ka raba hiiraan ha yimaado waxaan u sheegaa Roble prime ministerka afbuuc iyo afgaara waxaan kugu leenahay adeer dadka meesha jooga ee beenta kuu sheegaya ku lahay annaga kaa matelno adeer kacdoonka ma matalaan kacdoonkaaniiti gobolka hiiraan laga matelaa hiiraanay joogaan ninkii rabo inuu wada hadal la galo hiiraan yimaado nimaan hiiraan imaanin la hadlimeen mana kala tashaneen ninkii been kuu sheegi lahay ee ku dhihi lahay anaa ka mas-uula ee xamar jooga cid uu mas-uulkiya ilaah unta ma jirto dalka gobolkaaniiti wuxuu leeyahay nabadoono waxay leeyihiin ugaasiyo leeyihiin waxay leeyihiin kacdoon waxay leeyihiin dhalinyaro waxay leeyihiin cid kaleeto oo matali karta ama ku hadli karta codkooda oo maanta jirta ma jirto adeer haddaan nabad rabtaan xasilooni siyaasadeed la rabo haddii la rabo dhaqan laga rabo haddii reer hiiraan la rabo hiiraan ay joogaan hiiraan lagu yimaado ugu dambeyn waxaa war ka qaatay hogaamiyaha golaha la magac baxay kacdoonka gobolka hiiraan ee hirshabelle kasoo horjeeda jenaraal abuukar xaaji warsame xuud dhankiisa ayuuna si adag arrimaha uga hadlay anaga reer hiiraan waxaana quseeya nimankii xildhibaanada ahaa ama reer hiiraan ahaa war maxaa qabateen yaa wax u qabateen xaggee wax ka qabateen ad ayay farxumo u tahay adiga oo idinkoo laydin yaqaano damiir xun oo dadnimada idinka fogto inaad maanta isku daydaan inaad raadisaan mar labaad inaad xildhibaano ku soo noqotaan habeen xalaha oo taga waaye nin laaluushan aan laga qaadan oon sinan bixinin ayaan goobta keenaynaa baarlamaankana tegay saasna madaxweyne ku dooranayo mana ogolin inkaan doorannay inuu laaluusha madaxweyne ka qaato madaxweynaha ku talagalaya inuu laaluusha qaato jooji daad musharax madaxweyne tahay ummadda laaluusha ha barin ka joog intaa waxaa ii dheer waxa waaye nimanka xildhibaanada ee raadinayo inay la gorgortamaan nabadoonnada taas dariiq hore ahayd waa la soo dhaafay hadda kacdoonaa dhisay dadkii xaqoodaa la tusay waxaysan xaq u lahayn baa la tusay waxay xaq u leeyihiin baa la tusay inaad maanta marka isku daydaan inaad mar labaad laaluush iyo dabakalaabasho baarlamaanka ku gashaan suuragal maaha ma aha suuragal mana noqon doonto middan kale oo ah guddiyada xamar laga dhisaayo beenta la sheegayo oo la leeyahay annagaa ka wakiila reer hiiraan waxaas ma jiraan xamar qof walba oo reer hiiraan waa ogyahay waa meesha laga dumiyey hiiraan ragga hadda wax wadana waa ragga dumin jiray waxaan idin leenahay marka xamar waxba laguma samayn karo nama matalaan ninkii rabo inuu wax qabto hiiraan ha yimaado
midda kale nabadoon la doorto qabiilku doorto qabiilka meel isugu tago la caleemo saaraan aqoon jirnay waxay tahay nabadoon wasaaradda arrimaha gudaha warqad inta looga soo saxiixo wuxuu raba samaynayo kaas nabadoon ma noqon kariyo waa joogaan nabadoono qabiilkiisii ah oo la calaamo saaroo la doortay kuwaas muu ka weyn yahay anu ma fahmin macnaha ninkan loo soo doortay in wax lagu xado in wax lagu qarbado iyo hiiraan dhibaatadii haysay inay ku sii fogaata ayuu wasiirka arrimaha gudaha u soo saxiixay mana yeeli doono Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato maxamed ibraahim siyaad telefishinka caalamiga Hiiraan Beledweyne